casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Diploma of Filmmaking kooraskaas oo lagu baran doono qaababka iyo dariiqyada ugu wanaagsan ee kamarada loo duubo settingiskeedana loo saxo iyadoo loogu bari doono kamaradaha qaybahooda kala duwan sida kamaradaha Sony-ga iyo Canon-shaba ku shaqaynta studio-ga iyo sidoo kale fiidiyowyada si loo edit gareeyo iyo dhammaan qaybo kasta oo uu leeyahay muuqaalka in la duubo iyo in la hagaajiyaba haddaba cidii u baahan inay iska diiwaan geliso kooraskan hala soo xiriidho numberka WhatsApp-ka ee shaashada hortaada kaaga muuqda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلنتي عبون يسكسو نقد مركلة صاحب بيال عشر كينن maanta waxaynu ku baran doonaa amba waxaynu ku dhigan doonaa cashar keenan buu ku saabsan yahay qaabka titleska iyo graphics-ka lagu soo daro video-gaaga wuxuu noqon doonaa casharkani casharkii ugu dambeysay chapter keenan oo ahaa bilowgii iyo hordhici kaliya ta chapter-kan waxa la doonayay inaad muuqaalkii warbixin hordhacaun aad ka heshaan aan inta halka uga soo gudbo see muuqaalka loogu soo daraa qoraalka horta qoraalka saddex marxaladood baad ugu soo daraysaa waa qodobka koowaad waa inaad halka doorato ay ku qoran tahay marka koowaad tape tool amba xarafka T uu ku qoran yahay waa inaad doorato xarafka T uu ku qoran yahay marka doorato halkan shaashadaadan meel kamid ah aad ku dhufato qoraalkii uu kugu qoray toos buu kugu bilaabaya oo wixii aad doonayay ayaad halka ku qoraya magacii aad u baahnayd oo imika cadaan weeyaan fartaydan qoraalku halkan hadaan imika qoraalkayga wada doorto meeshii wax laga bedelayay imika ima taalo marka meeshii wax laga bedelayay imika ma rabo laakiin inaan idin sheego oo dariiqa labaad baynu ku baran doonaa laakiin imika halkaas magacii aad u baahnayd iyo kolba wixii aad u baahnayd inaad ku qorto ayaad taasoo kale ugu qoraysaa waayahay kaas waa qoraalkii koowaad qaabka loo soo gelinay marka qoraalkan waxaad samaynaysaa inaad adigu wixii aad u baahnayd aad ku soo kordhisato oo imika markaynu halka qoraal ku qornay oo aynu qoraal ku soo kordhinay tape toolkii soo doornay halkan maxay noogu soo biiray graphics cusub marka ku wada jiid qoraalkayga iyo ku half jiidba halkaas ayaan ka dooranaya waayahay arinta halka kaga tagno kaasi waa qodobkii koowaad qodobka labaad waxa weeye inaan soo furano essential graphics wixii loo yaqaan essential graphics halkan ka soo doorta halkan windows-kan tagaya windows-ka markaan tago waxaan haddana ka soo dooranay meesha ku qoran tahay essential graphics taa ay ku qoran tahay essential graphics baa soo furanaya hal mar baad dooranaysaa marka doorato waxay ku soo barbargelaysaa bartii loometri colorku ay noo taale halkan waa essential graphics tan ku xigtaana waa loometri color tan waa essential graphics kaas ay tagaynaa kadibna waxaan dooranaa halkii ku qoran tahay laba marxaladood baa markaa inoo yaala mid waa browse oo waxa weeyaan mid samaysan oo hore loo sameeyay oo dhaqdhaqaaqaysa la soo baxa midina waxa weeyaan edit oo adigu imika edit gareysa mid cusub editka aan idinka bilaabo haddaan editka doorto oo baashaare koornaha taale new layer ay ku qoran tahay aan doorto afartan shay ayaa inoo yaala marka kan shanaad waxa weeyaan inaad shay ku save gareysnaa aad computerkaaga ka soo dhex saarato file from weeyaan marka haddaan taabto file buu doonayaa computerkaaga ku dhex jiray oo computerkeenigu toos noo dhex gelinaya waa ka shaashadan noo soo furay ka soo dhex dooro buu ku leeyahay marka taas inaga daayada ah marka afartan kale inoo soo hadhay inoo soo fur taasi waxay noqonaysaa qaar ku dhex yaala computerkaaga oo titleist graphics ah inaad daydato marka titleist graphics hadda inoo dhex yaala ma jirto haddaba tagasti baan dooran karaya tagasti markaan doorto waa qoraalkii halkan qoraalkaaga ku bedel buu ku leeyahay qoraalkayga imika waxaan idhiyo kale magac soo imika magac ma noodhan aan u baahnaa magacii aan u baahnaa baan geliyay magacii aan u baahnaa markaan geliyay qoraalkaygii halkan wax kaga bedbedelinaya fartiisi baan weyneyn karaya anigoo taa 100% halka ay taagantay tagaska ayaan odhanay farteedii weynay oo intaad marka hore qoraalkaygii wada doorato kadibna fartanii weynay wii dooranyo imika wii highlight gareysan kadibna farteedanii weynay ii kor muxuu sameeyay inuu farteedii magaceedii marna ii yareynayo marna ii weyneynayo oo wax weyn uu ka dhigay waay halka fartii baa size-keedii laga weyneynaya tan waxa weeyaan intay isku jirjiraan VA tan ay ku qoran tahay waa intay isku jirjiraan kala fogfogay oo imika maxaad arkaysaa inay xarfiyi kala durkeen marna way isku soo dhawey ilaa ay istul gelinayso amba kala fogee amba isku soo dhawey waayahay labadaana wayna aragnay marka dhexdhexaad inooga dhig ayaan imika leeyahay waxyaabaha kale waxa weeyaan shaygaagan bold lagaaga wada dhigo waxa weyn lagaaga dhigo in italic lagaaga dhigo lagu jiifjiifiyo in la suka wada leekaysiyo xuruuf waaweyn lagaaga dhigo marka waxyaabahaas ay ka yara hadlaan
ma xaraf weyn iyo xaraf yar iga kala dhig oo ta ugu horreysana ha weynaato ta ugu dambeysana ha yaraato sekadan baa ku qabanaysa ma xarafka ugu horeeyo weyni inta kale oo dhan yare xarafka ugu horeeyo weyni inta kalena yare saasoo kale ayadu dhigdhigaysa u kala doordooranaysa ka waxyaabahaasi caynkaas ay ka hadlaan haddana intaa hoos uga soo gudbo amba aan halkan sare kor uga kaco waxa laga soo doortaa farta nooca doonayso oo far noocaas oo kale aad doonaysaa nooca iga bedel baan leeyahay noocii aad doonaysay nooca laaliya noocii aad u baahantay ayaad halkan ka soo dhex dooranaysaa intaasoo farood ayaa kugu jirta marka noocii aad u baahatay nashqadaada kugu qurux badnaanaysa ayaad halkan ka soo dhex dooranaysaa marka imika anu haddaan kor wado waxaan ka soo dhex dooranayaa inta badan taasaan inta badan yara qaataa anu isticmaalaa marka faraha waxaad eegan doontaa un dadka daawanaya hadhow talo muuqaalkaagan caajibinaya markan inta halkaa kaga tago halkan alignment and transformkii baan iyadana idinka soo dulbooday qaybtan kalena waxay ka hadlaysaa qaabyaaliinka meesha qoraalkaagan siduu u oolayay meeshuu oolayo ayaad ku dooranaysaa labadan koowaad halkan haddaan kasoo bilaabo tan waxa weeye vertical tanna waxa weeye horizontal central macnaa bartanka dhig adigoo vertical u eegaya kor iyo hoos macnaa jihada sare iyo jihada hoose muuqaalka jihada sare muuqaalku waa intaa sare madaxu yahay jihada hoosena waa intaa microphone ku xidhan yahay iyo dhinaca hoose marka dhinaca hoose iyo dhinaca hoose bartankooga dhig baan imika doorto taasaa laga dooranaya haddana haddaba doonayo labada midig iyo bidixna taasaan dooranaya ku qoranta horizontal central marka haddii aan taa doorto muxuu dhigay iyadina bartankii kale u dhigay midig iyo bidix bartankoogii buu dhigay marka labadana waa saasoo kale waa isku dheelitir oo xagga sare ku badi dhexda dhig hoosta ku badi saasaad halkana ugu kala dooranaysa waxyaabahaasi ka hadlaysaa tan waxay ka hadlaysaa cidhifkaa dhig oo cidhifkaana dhig saasaad adigu kuwan uga doordooranaysaa haddii kale waxaad samaynaysaaba inaad doorato move toolka selection toolka haddaad doorato shaygaaga waad soo qaadanaysaa meel allaaliya meeshaad u baahantay inaad dhigta dhigi karaysa qaybtan ku xigtaa waxa weeyaan afarta jiho midig bidix kor iyo hoos waxaan ujeedaa ayaa labadan laga wadoodaa labadan baa laga wada controlaa la isku xidhan laakiin midna waxay ku qaabilsantay kor iyo hoos midna waxay ku qaabilsantay midig iyo bidix iminka jihadan soo horeysa 749 ay noogu qorantay haddaan dhinaca u leexiyo shaygani maxaad arkaysaa inuu dhinaca isku wado dhinaca tusaale kale 100 baan halkaa geliyay tiraa enter baan sii muxuu isku badiyay dhinacii kamarada amba cidhifkii kamarada ayuu tegey iminka waxa laga yaabaa inay fartan waxba ka arkay farta midabkeena aan naga bedelo horta oo soo gali doonaa appearance qaybtan midabka laga bedelo laakiin iminka midab aad ku yara aragtaan baan u sameynaya casaan iga dhig way xagan hore hadaba igu soo celi iminka halkan muxuu yahaa 100% soo ima ahay iminka halkaas muxuu sameeyay kamarada agteedii ayuu dhigay ii dooro 500 iga dhig muxuu sameeyay bartan ku igey haddana ii dooro waxaad iga dhigtaa 1500 muxuu sameeyay hareertaas shuba ka wada saar marka tan maxaad ka waduudan karaysaa dhinacii aad u baahan tahay ayaad u waduudan karaysaa inaad dhigto tan ku xigtaana waxa weeyaan kor iyo hoos marka haddana imika yidhahdo halkaa 200 oo kale kor buu qaada haddana yidhahdo halkaa 1000 oo kale 100 baan imika ka dhigay 1000 iga dhig muxuu sameeyey hoos buu igu soo dhigay tan kale ku xigtaa amba godkan kale ka hooseeya amba taasi waxa weeyaan scale-kii amba xajmigii ay yeelanaysa shaygan haddii aan kordhiyo shaygaygan wuu sii weynaanaya kolba intaan ka dhigto haddaan yareeyana shaygaygan wuu sii naqnaanaya waxay la mid tahay taas halkaa laynoogu soo qoray ee taasi tiradii inoo sheegaysa oo kale waayahay tan kale ku xigtaa waxaa la yidhahdaa transparent aan shaygaynan inoo soo weynayo transparent kasaad ogaataa transparent oo maxaa tahay transparent waxa weeyaan transparent waxa weeyaan shaygaagan xaddiga la arkayo maxaan uga jeedaa xaddiga la arkayo qof ayaa imika wuxuu kuu soo jiraa meel u jirta 100 mitir meel kuu soo jirta 100 tallaabo ayuu qofi soo socdaa qofka kale wuxuu soo socdaa meel u jirta 200 tallaabo labadaa shay iyo ma si clear amba waadixa kugu muuqanaya de qofkan 100 tallaabo kuu jira ka 5 tallaabo kuu jira iyo ka 100 tallaabo kuu jira waxaad si waadixa u arkaysaa ka 5 tallaabo kuu jira laakiin ka 100 tallaabo ka durugsan waad arkaysaa laakiin si waadixa uma arkaysid shaygan waxa weeyaan 100% waadix ka dhig marna waxa weeyaan
boqolkiiba 10 oo kale aan geysanaya imika boqolkiiba 6 oo kale aan geeyay imika waadix ka dhig miyaa la arkaya may hadday idhaahdo boqolkiiba 20 oo kale boqolkiiba 8 waadix ka dhig imika meesha hadda qoraalku inoogu qoray oo haddaad halkaa u fiirsataan magacii wuu inoogu qoray ereygii laakiin shaygii si waadixa waxba loogama dhex arkayo loogooyinkoo kale ayaa sidaasoo kale lagu sameeyaa haddaba intaan halkaa uga soo gudbo haddii aan u soo gudbo qaybtan ugu hooseysa waxa weeyaan qaybtan ugu hooseysa appearance marka ugu horeysa shaygeeni inoo wada muuji oo boqolkiiba boqol qoraalkeeni marka hataa qoraalkeena waxaan doonayaa midabka see looga bedelaa appearance waxa la yiraahdaa muuqaalka soo muuqanaya ayaa la yiraahdaa haddaba muuqaalka soo muuqanaya waxa looga bedelaa saddex shay baa lagu kala bedelaa mid waa fill midna waa stroke midna waa shadow saddexdaaba qoraalkan baa leh fiilku waxa weeyaan midabku ka kooban yahay tusaale kale madow baan doorto okay baan sii oo marka hore qoraalkii dooran u jeeda kadibna fiilkii dooro midabkiisii madow iga dhig okay na isi hadda inta ma ila fahdeen qoraalkii baan wada highlight garay saimiko kale halka koornaa kaga soo bilowsa ugu wada jiid hadda marka qoraalkii sida aad wada highlight garaysto hadda doontana control iyo e baad qabanaysaa si aad wada highlight garaysto ma wada highlight garaystay fiilka dooro midabka doonaysiina ku bedel okay si asaan buu marka hore ahaa ii dooro halkan ma ka soo dhex dooranaya blue gaas baan ka dhiganayaa maanta okay na waa siinaya way halkaan kaga taga fiilkii isaga fiilku waa inta haddaba waxa soo haray stroke muxuu stroke waxa weeyaan shayga ku dahaaran qoraalkeena haddii imkaan stroke-giisaas waa midabka cadaanka Soomaa ka bedelo oo ka dhiga midabka akhtarka waliba akhtarka abu madowga okay aan siiyo halkan aan kordhiyo stroke-gii maxaad arkaysaa balaan halka ka yara baxan maxaad arkaysaa inuu midab yar oo maxay isku soo dahaaray midab yar akhtari bal ii wada dooro qoraalkii baan wada dhamal click si xagan fiilkii waxaan ka dhigayaa si aad si buuxdo waadixa ugu aragtaan waxaan ka dhigayaa tusaale kale qoraalkaygii midabka huruuda leemiga ayaan ka dhigayaa okay ma siinaya stroke-giina madow baan ka dhigayaa labadaas si buuxdo isku soo baxaya bal haddaba aan keer saaro meel banaan ku dhufto maxaad arkaysaa madow hareeraha ku wareegsan iyo huruuda oo ah midabkii gudaha labadaasina saasay kaleeyeen stroke ba kaana la yiraahdaa waayay aan kaana halka ugu gudbo aan qoraalkaygan halkan hoose aan soo yaro dhaweysto aan qoraalkii ku dhufto way qoraalkaygan magaca la yiraahdaa ay wada select garee ma select gareys stroke weyn ka sii kordhin doona xagga doonayso ay stroke ka dhigan karaysa oo saasoo kale wadinka arkayda halka soo qoraalkii noqonaya miyad ku yarayni ku naqnaysiin miyaa laga dareemiyo miyad ku badini adiga ku xidhantay way stroke inaga yara xidhadaba marka doonaysa shayga xidho xaggan baad zero ka dhigan karaysaa stroke amba halka ay horumar sax ka qaadaysa labadaaba waad samayn kartaa shadowga aynu soo gudub shadowgu maxaa tahay adu shadowgiisa imika madow baan ka dhigay okay baan sii haddaan halka yar soo yaro kordhiyo shadowgeeni waa ka haddaba shadowgan waxaan samaynayaa waan ku kordhin karayaa waana ka yareyn karayaa kolba shadowgii adiga halkan ka maamulaya waa kan shadowga harkiisa shadowga marka shantan shay baa lagu maamulaa xaggan hoose ka xigta shantan shay ee xaggan hoose inaga xigta ayaa lagu maamulaa shantan shay maxay tan ugu horeysa waxay ka hadlaysaa opacity-ga inta uu soo muuqanayo imika haddaynu halkaa ka baxno miyuu inoo muuqdaa wax shadow hari oo magacay oo madow ma jiro Soomaa laakiin ana ay tusaysa inoogu muuqdaan haddaan imika tan aan yaro hoos u dhicigo maxaad arkaysaa inuu qoraal soo baxay madow kor baan u celi wuu dul yaala zero markuu yahay shaygeeni buu ku dul beegan yahay laakiin haddaan ilaa jiha uga saar oo qoraalkii waxaan doonayaa inuu jiha uga soo baxo halkiisii hoos uga soo saar baan waayahay hoostii baan doonayaa inaan ka bedelo imika sada halka ku arkaysaan hoos buu ka soo baxay angle kan baan bedelayaa angle kan amba direction kan goobadan yar ayaan warwareejinayaa kolba 120 degree imika weeye hareertaas uu jooga hareerta kale ay dhig baan leeyahay hareertii kale hadana ay dhig eegada intaad ka saaraysid tan ka hooseysa laga dooranaya eegada taas waa intaad ka saaraysid tanna waa angle-ka u jeedinaysa angle-ka u jeedi angle-ka u jeedi angle-ka u jeedi angle-ka u jeedi tanna waa maxay waa intuu muuqanayo masaasa doonaysa inuu caayar muuqdo in yar oo daniiqa imika markuu saa yahay uu ka daba muuqda hadda halka aynu soo dhaweynay aad u fiirsataan shaarka magac baa ku ag qoran laakiin lagama dareemayo marka hadda inaha uga soo gudbo oo taasi saa u yahay opacity-gii wada muuji tan kale waxa weeyaan shaygii inaad weynayso inta uu rasiinkiisii noqonayo oo wadiga arkay imika magaciisa nu sii rasiin gareeyay marna san rasiinkii u yareeyay oo nu leekaysiyo marka taasina waxay ka dhigantay rasiin gareynta marka si aad hadda doonaysaa inaad u samaysaan oo kale opacity-giisa yareeya rasiinkiisa in yar yareeya isagana dib u yareeya oo yuna aad uga soo bixin magaca
oo saasoo kale ka dhiga marka saasuu ku qurux badan inta badan shadow tanna waa angalka la dhigayo iyo xaddiga uu noqonayo macnaa ma inuu shucaaca wada noqdo doonsa mise inuu caadi loo arka doonsa marka tanna oo kalena in yar ku yara dardara marka saasaa shadowga loogu sameeyaa qoraalka iminka haddaynu soo weyneyno qoraalkeenan shadow yar oo official ayuu yeelanaya marka waa ninka saa halkaa ku arkaya magaca haddaad u fiirsato hareerihiisa inta hareeraha ka xigta qoraal yar yar oo harhar oo kaliya miyaanu marmarsanayn xaraf kasta intaasaa la yidhahdaa shadow waayahay appearance-giina waxaan u malaynayaa inaynu wax badan ka fahnay maantana qoraalkii aynu si buuxda wax badan uga fahnay casharkeenan maantu halkaas ayuu inoogu joogi doonaa tan iyo intaynu isugu iman doonno casharka ku xigta oo chapterkeeniba maanta malaha waa gebagebe waa aniga oo idinkaga tegaya ismaqal aragti dambe oo xiiso badan